xukuumadda Soomaaliland ayaa faahfaahin dheer waxa ay ka bixisay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta xilli uu waraysi gaar ah u siiyay telefishinka caalamiga ee Kalsan maareeyaha hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga ah Faysal Cali Sheekh waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee abaaraha ka jira Soomaaliland dalka waxa ka jira abaar baa ka jira saynu ognahayna waa abaar soo noqnoqday oo 4 sano ee u dambeeyay runtii soo noqnoqonayay dadku wax badan ba xooluhu ka soo dhamaadeen khaasatan dadkii reer miyiga tan way sii raacday oo dadku awal abaaruhu waxay dhici jireen iyagoo xoolo haysta dabadna xoolaha barka dhiman jiray imika iyagoo xoolihii yar ba intii kalena ay runtii ay dhimanaysaa marka way ka saameyn badan tahay kolka la eego abaari hore aad bay uga saameyn badan tahay dalka guud ahaanna waxaad moodaa inay aad iyo aad u saameysay gubanka kamid ah dhulka gubanka loo yaqaano kolka xeebta laga soo bilaabo Lawiyacado ilaa iyo Mayd kolka halka laga geeyo xeebta oo dheersan dhamaanteed waxa ka jira runtii meel yar buu marmar roob ka day laakiin badankooda waxa ugu dambeysay 2015 December ba meelaha qaar roob anagoo booqasho meelaha qaar soo maray marka waxa kamida isna deegaanada ay dhibtu ka jirto dhulka loo yaqaan hawdka oo xoolo dhaqatada ah oo ka bilaabma ilaa Farweyne ilaa Saaxdheer halka ka gala gobolka Sool halka ka gala oo dhulka xuduudda ah oo dhan iyadana saas leeg waxa ka jirta abaar baan runtii iyadana ka jirta sidoo kale goobaha ay kamidkii gobolada meelaha pastoral xoolo dhaqato beeraleyda gobolka Togdheer oo Oodweyne Xaaxi beer sheekh eriyooyinkaasna iyagana ilaa iyo qoyta waxa ka jira iyagana abaar baa ka jirta TV-ga Kalsan ayaa wax ka weydiiyay maareeyaha halka ay ku dambeysay lacagtii loogu talagalay ka soo kabashada abaaraha ee xukuumadii hore ee u garwadeenka ka ahaa madaxweyne Siilaanyo ay ka soo ururiyeen ganacsatada iyo shacbiga halka ay ku dambeysay waxa uu ku jawaabay maareeyaha hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaranka Faysal Cali Sheekh runtii way jirtay gudidaasi inay lacagayo ay ururiyeen way jirtay annaga waxay nagu soo wareejeen haba yaraatee ma jiro booyada iyaguna jiray loogu talagalay abaaraha iyaguna way yaalaan baasay noo sheegeen marka hawshaasi madaxtooyada u deyninayo annagu runtii ma nafalgelin maadaama ay digreeto madaxweyne ku magacawnaayeen sida laga yeelayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka bay u deyninaa bal waxay ku taliyaan iyo siyaabaha ay u dhigaan